السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال halka aad nagala socotaan waa cirka channel degestiyaal sida aad nooga barateenba barnaamijyada wacyigelinta haday ahaan xagga dhaqaalaha inkastoo saaxiibkay uu yiri xagga dhaqaalaha xooga saartay maxaa dhacay haddana caawa kula xumalanaya dad sidaas oo kale marka dhanka dhaqaalaha iyo wax soo saarka laga hadlayo baahi fara badan oo haysa jira marka dadka aan isku dareenkanahay baan rabaa anoo matariya inaan barnaamijkan mar kaleeto halka ka soo deeno waxa marti noogu asaad hore noogu barateen barnaamijyadeena hore oo qayb badan laga soo qayb qaatay Dr. Maxamed Dayib oo ah dhaqaaliyahan aqoonyahan dhanka dhaqaalaha ah waxaan rabnaa caawa barnaamijka inaan ku soo koobno sida loo maamulo qoysaska waxaad ogtihiin horena saaxiibkay si aan hore uga wada hadlayba ama bulsho badan dareenkeeda muujinayo dhaqaaluhu marka uu badan yahay wuxuu la yimaadaa carqalad oo faamilo waxa jira dhaqaalaha badan dartooda u burbura sidoo kale dhaqaala yaridana faamilo fara badan baa u burbura oo qoysas baa u kala taga oo caruur baa cidlo ugu soo dhacda iyo faamilo muslimiin ah haddaba barnaamijkan saaxiibkay waxaan rabnaa inuu noo soo koobo oo tababar caawa naga siiyo sida loo maamulo qoyska ama faamilka ama guriga ay ku nool yihiin family dhameystiran oo ka kooban aabe hooyo iyo ubadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala u dhaxdooda ka beeray ku soo dhawo markale Dr. Maxamed bismillaahir rahmaanir rahiim miisaaniyada guriga runtii waa meelaha ugu muhiimsan weeye maxaan ku fashilanay maxay meeshaas maaragtay maxaa wax ka dhacay إلهو يرنو نقولن لما تقولون ما لا تفعلون يعني نقول نقولن يا محاد واحد يدكم سمينين هذا ما رحت أضل حسان لكن وحرمنا إن بل أي إسكودا دينه دي يعني حتى بل يران يعني وعرفنا كمده هوية أندور إنه بلغت إننا علم غيرين ويران إننا غيرين ساس أندورنا وأنا تلاوة الكوبات ونقاله كهجاو برنامج كان الذكاء المالي وحوليه هي طلابة أوجه الرئيسة وحرر كسوقلا وإن أي بقول كي باللبعتن أرتوا أين نارس كنجان حتى إنك إيوه لبعض قف بأشقيان بقول كي باللبعتن وإن مارس كنجان هذا لكن سأل أمري وتعالى الرئيس وحور ربع إنه ماركتي مسألة دي هذا إنك وحيس يعني لو جاني برواجو وحي ولا سلوك لكن قبل ولا شيء يا جامعه وأنا سلوك هذا روح بلاي أنت أنا أسوق ما صير كدكتير صوته أنا صاحبتي عبد الله كامل هذا waxaan jeclahay waxa in qaar marka hadii sir laga dhigo waxaad moodaa wax badan xalis malaha xalis meeynin waxa la rabaa marka wixii in reerku waa inay is og yihiin aadiya horta halkaas baash ku bilaabanaysaa ayaan isku dirana ma rabno marka waxa la rabaa 20% meel baa dhigaya markii 120 laga dhigo laga jarayo intii kale waxa laga soo qaadaya 100% ba laga soo qaadaya si fiican 120 marka meel dhigtay ba intii kale 120 laga soo qaadaya boqolkii kale ee soo hadhay markii 20 laga jaray konton kamid ah waxa laga dhigayaa noloshii caadigeed ayaa laga dhigayaa si fiican boqolkiiba 10na wixii kharashaadka la iskaga bixinaya kiradii waxbarashadii waxyaabihii noocaas ah maaragtay ayaa la iskaga bixinaya si fiican boqolkiiba 10na reerka wanaagsan waa dalxiis iyo maaragtay martiqaad iyo meelaha tagtagitaan ya tarfiih ayaa lagu sameeynaya boqolkiiba 5 waxa weeye waa tadwiir shakhsi oo lil abawayn wal abnaa boqolkiiba 5 waxa weeyaan waa la isku horumarinaya hooyadii aabuhu waa inay aadaan bishiiba training waa inay galaan aadiya waa inay ka soo qayb galaan shir laga hadlayo arrimaha qoyska waa inay xirfad bartaan waa inay sida ilmaha loo tarbiyeeyo ay soo bartaan يعني waxa weeyaan wax ayaga isku hormarinaya ilmaha waa in loogu yeedhaa la rabaa ninka magaalada ugu khabiirsan haba dhinaca doonayso marka aad u baahato dhanka diiniga sheekha magaalada ugu inta u yeedho shaahiisa aad wax u qorsheyso gaarigiisa iyo saaxiibadii ya waa inaad ugu talagasho way waxa ugu talagashay yani ilmihii inaad barnaamij inaad barto yani waa in iyadana budget loogu talagalo dadka lagu hormariyo training iyo tababar lagu qaato nolosha dhinacyada kala duwan boqolkiiba 10 ayadana waa inay reerku u qorsheeyo wax la yiraahdo al-cinaaya bis-siha yani dadku inay maaragtay caafimaadkii iyo
jirkii yani maartay isqurxintii iyo agaabihii iyo reer hormarintiisii iyo hadiyadihii dadka la siin lahaa qaraabada iyo abaalmarinihii dadka lagu abaalmarin lahaa dhiirigelintii ayaa lagu talagalaya 10%. Okay. shan kamid aha dhaqaalaha reerka soo gabeeyay su'aal baan ka qabtay. Su'aal baan ka qabay su'aasha qaba. shan reerka aan dhameeyo 5% waxa soo galana waa inay noqdaan sadaqad thaabit ah. waqaf in wax lagu darsado. مثلا oo kale in lagu darsado arday maaragtay wax baranay dalab cilmi lacagta laga bixiyo. agoon in wax laga bixiyo. madrasa quraan kariimka inaad maaragtay ku dhisto inaad ku hormariso ardayda tartamayaasha maaragtay loo qabanayo tartamada la qabanayo kale in maaragtay wax lagu daro saas kale ay noqonayaan marka idaaratul maaragtay miisaaniyatul manzil inahaas aan ku soo koobi lahaa waan ka baxay inta wixii ka dambeeyay waa ustaad jaamac sheekh waxa raba hal su'aal meeshaas oo kaftan inaan galiyay Allah ybarik waxa tiri dhinacii make upka iyo isqurxintii masleedahay albaab aan diyaar loo ahayn in la furo taasi ma ka taamo aho waxa weeyaan de dabcan qofkii bini aadan weeye waa la soo mariyay gabdhaha kale waliba isqurxiyaan waa dhimma quruxda moogtay lama diidano hada rag dhis inuu isqurxiyo barfuunkiyo qaaliga la soo gato allergiga ka celinin mesela allergiga qof qaba dad qayb kamid barfuun kasta lagu buufin karo u baahan yahay barfuun yani maaragtay habaysan oo يعني maaragtay laga yaabo in lacag fiican uu joogo meel fiican laga soo gado ayuu baahan yahay taasoo kale marka waa daruuro weeye wax dhiba ma keenayso gabadhu saasoo kale in kareen fiican gadato oo yani qurxinaya ayna wax dhiba male si odaygeeda isugu qurxiso oo nolosha iyo xataa ragaba aad iyo aad baa u mahadsan tahay barnaamijkan dhegeystayaasha qiimaha badan ee cirka media mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka mahadcelinaya barnaamijkan la socotaan sidoo kale waxaan u mahad guri walbana waxaan doonayaa inaan sheego dabeecad gaar u leeyahay guri la dabeecad ah ma jiro nin walba xaalkiisa isaga yaqaan aad iyo aad baa sheekh mahadsan tahay waana ku mahadsan tahay barnaamijkan nagala qayb qaadatay Allah yaqaan oo ah yaqaanka kaameramanka barnaamijka cirka mediana si gaar ah ugu mahad celinayaa waqtigiisa iyo sida wanaagsan oo uga qayb qaatay in barnaamijkan uu soo gaaro bahda ku xiran cirka media. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.